waxaan anigu arkay nin Soomaali la baxay Faarax New American oo ku celinaya Faarax New American TikTok ku jira meel buu ku jira waxay tamaya Soomaalida caayaya ninkaas waxa la ii sheegay inuu yahay nin Oromo ah oo af Soomaaliga yaqaan oo qorshihiisu yahay dadka Soomaalida inuu ku diro waxa marka dadka kale inuu cadaawad tuso wuxuu leeyahay cuntaan cunaa free ah waad soo shaqaysaan wuxuu leeyahay lacagtiinaan cunaa oo ay tamaya oo cadaanka annaga saas yeel waxaas oo dhan wuxuu sameeyay dadku ku diraya marka dadka Soomaalida dhalinyarada ah oo waxa leeyahay magaciisa Faarax New American balda ninka isaga sidii wax looga qaban lahaa oo looga hortagi lahaa oo maxal dhig jiray loo sameyn lahaa not in physically dib loo geysto ma ka hadlayna laakiin wuxuu ku hadlayo kale inuu la beeniyo loona sheego inuu Soomaali ahayn baan bulshada Soomaalida u sheegay ka codsanaya waxa dhaaf Faarax New American especially the young people they need to understand that guy is making a lot of false accusations against the Somali people.